السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحان مانتيدين لو ذاك دونا موضوع عن عوان ودقني محاينو بدنكين وحمنا دادكا marka ay dhigtaadu ku soo dhacdo erigaxan waxa laga yaabaa inaad xasuusato qof aad horay waxan uga sheegtay isla markaana aad ka xumaato balse hal yaabin badankeenu dadka waxaan ka sheegnaa balse dhibaatada in haysata ayaa ah in aynaan garanin sidii aynu hadalkeena waxa kameyn lahayn afkana uga meeri lahayn in aynu umada wax ka sheegno waa hubaal in aynu dhamaanteen leenahay meel aynu ku liidano balse inaga oo aan rabna inteena la qadiyo ayaynu dadka mar walba afka ku haynaa sababta oo ah ceebteena ayaynu rabnaa inaan ka qeerno dadka kale waxa yaabku uga filan adiga oo og in aad adiguba leedahay meel aad ku liidato adiga oo aan taada diirada saaray oo aan hagaajinayn ayaa haddana waxa aynu u wada fooganahay isla markaana u heelanahay in aan dadka u sheegno meelaha ay ku liitaan marka aan soobeeyo sababta aan badankeenu waxana dadka waxaan ogaaday in ay tahay uun liidnaan iyo hooseyn uu og yahay qofka waxamanaya inuu ka darajo hooseeyo ka waxamanayo ugu dambeyn walaalayaal waynu wada ogsoonahay inuu Allah subhanahu wa ta'ala ee quraankiisa ku yiri يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ومعناheedu tahay kuwii iimaanka laga helayo ka fogaada malaha maxaa yeelay malaha qaarkiis waa dambi ani isjaajuusina qaarkiin bayuusan xamanin qaarka kale midkiin miyuu jecel yahay inuu cuno hilibka walaalkiis oo meyd ah waad necebtihiin arrintaas eeba ka dhowrsada waa toobad aqbalana naxariistee والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.